السلام عليكم سودو هذا صاحب بيال أسكري كلا أو إسرائيلي أي إسدلي دقيقته اللي صار ضعفي مقالك كان كوري واحد كله وداعي أسكري كم إذا أسكرت فرمها شوجا أو إسرائيل كتر سنة عيدا كده أو إسدلي حدنا وميت كله واحد ساعة غير جدود أي إسكدليان دنك كله إيران أي مانت وحى أي دل توجا شأو نكان أدار كيسان أو أهنن إسرائيلي كاسو أولوه لي إن أوقف إيراني dilay waxa uu ku nool yahay dalka Iiraan arintan ayaa laga baqayaa inay xasaasiyad kala sii dhaliso xagaag sidoo kale afar qofood oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Netanyahu ayaa la xiray oo xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyay inay sir fakiyeen warba waa ka dambeeya soo dhawaada saaxiibayaal fadlan waxaan ka codsanayaa had u soo biirto muuqaalkana aad like saarto waa maasan tahay sida hore idinku sheegay warbaahintu waxay aad iyo aad u sheegaysaa oo la isla dhex qaadiya askartii Israa'iil in uu ku dhacay jab niyad jab aan inaba caadi ahayn inuu ku dhacay kaas oo ay uga ruqsaysanayaan ciidankii qaarkood ay waalanayaan qaarna markii furimaha laga soo bixiyo aysan u laabaneyn oo aysan rabin lagu makaraba in furimaha ay tagaan oo mar kale ay ku laabtaan waxa ugu badan baa la leeyahay kuwa aan furimaha ku laabaneyn kuwa ka dagaalamay Jabaliya qaasa kuwa ka soo dagaalamay ayaa ugu daran baa la leeyahay kuwa aan furimaha lagu karin inay ku laabtaan sababtoo ah halaagii oo caadi ah ay indhahooda ku soo arkeen arintaas ayaa jirtay ciidamadii marka waxa ay u bateen kuwa baxsanaya kuwa maaragtaa ruqsaysanaya kuwa diidaya kuwa waalanaya kuwa isdilaya maanta marka askarigan baa isdilay maanta doornimadii ayuu isdilay askarigan warbaahinta ayuu aad iyo aad u haystay Al-Jazeera ayaa waxa ay daqiiqado ka hor soo qortay marka warkan sheegaya in askari kamida ciidamada Israa'iil uu isdilay daqiiqadii la soo dhaafay kadib markii loogu yeeray inuu furimaha soo galo sida wada ogtihiin Israa'iil waxa ay leedahay laba ciidanka furimaha jooga oo diyaarka ah markasta oo safka hore ah iyo kuwa loogu talagalay kuwa kaydka la yiraahdo ciidamada kaydka kuwaasi oo loogu talagalay marka xaaladdu ay xumaato in loo waco waxay gaarayaan bal leeyahay 500 ilaa iyo 200 waxa u dhaxeeya 200,000 ilaa 500,000 waxa u dhaxeeya oo ciidan ah ayay gaarayaan ciidamada kaydka maanta askari kamid ah askartii furimaha joogtay ayaa isdilay halkaas bay noo joogtay haddana waxa la sheegayaa askari kamida askartii kaydka inuu isdilay kadib marka loogu wacay inuu furimaha iska soo xaadiriyo wuxuu leeyahay maya arintan ma aqbalayo leeyahay niyadeedu ma isiinayso nimanka iyaga ah ee halyeeyada ah ee libaaxyada ah ee xabadooda kuleelka ay ka badatay ilaa waa nin ku dagaalamaya niyad oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu garabkiisa yahay haduu dhintana rajeynay Ilaahay agtiisa wax weyn ka rajeynaya xabadaas xanuunkii ka badatay xanuunkii ayay ka badatay ninka wuxuu si u soo bareera ma yaqaan yaani qaab u soo bareera ma yaqaan marka wuxuu yiri inta aan naxdin u dhiman lahaa inta aan sii socdo aan hadda iska sii dhinto taagiya intuu sii socdo oo dagaalka galo kadibna lagu dilo naxdintaas iyo qaraxaas intuu gal lahaa waxa uu ka door biday inuu isagu nafta isdhaafiyo عادي بيقولني جبين قلبدا جبتي حاجة وحي كسو كردة إذا ما داس يقول نفته ذو كوكا ماريا وإذا لو داقي دونا إذن إلهي دنك كلا تلك إيران أيام ما أنت وحال وجود الدليل نين كان دل يراد أو نين يهودي ويهود كنول دلك إيران أيو كجرا نين كان يهودي waxaa lagu soo eedeeyay in uu mid ku dilay qof kale oo maaragta Iiraan ah inuu mid ku dilay dacwad dheer iyo baaritaan dheer oo ninkan lagu waday maanta ay Iiraan go'aansatay in maxkamadeedu in ay ninkan daldasho waa la ciijiyay geed baa laga soo suray surka laga sirqiyay kadibna sidaas buu ku dhintay asalkiisu waxa uu ka soo jeedaa waa nin Yahuudi ah laakiin ku nool dalka Iiraan arintan maalmihii la soo dhaafo dhan hay'adaha xuquuqul insaanka leeyahay ayaa aad uga digay waxa lahaa maya Iiraan waxa way xuquuqda aadanaha ayay ku xadgudbaysaa qof bay daldalaysaa waa ay dilaysaa naftay dhaafinaysaa Israa'iil waxa ay geed dheer iyo geed gaamaba u fuushay ninka inay badbaadsato oo ay tiraahdo maaragtay yaa la dil lacag baa la bixinaya qoyskii baa lacag la siinaya Iiraan waxa ka jira qof dila in tiirka inta la geeyo la dilo sharciga islaamka in lagu dhaqo kasoo shiicayihiin diintoodu yaani qaabka ay u haystaan kama roqsanaadaan marka wax kaliya oo dilkaas uu uga baaqsan karo qofku waxa weeye qofka dhintay ehelkiisu inay cafis fidiyaan oo ay yiraahdaan waxa weeye sidaas ma ku cafina bas ayaa looga
badbaadi karaa Iran xukunkeeda haddii kale waa dil toogasho hay'adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ka leeyahay ee fadhigeedu uu yahay Norway saan filayo ayaa dacwad iyo maxkamad waxba la tagiina sidaas bay maaragtay magaalada la wareegayaan tiyo aan ogeyn in bilkoor ninkii daaciga ahaa ee sheeg magaciisa muxuu ahaa ninkii daaciga Mareykanka lagu dili jiray magaciisa muxuu ahaa soo xasuusiya magaciisa waa iska sii daayay ninkii Mareykanka ahaa ee daaciga ahaa muslimka ahaa ee xabsiga 22 sano ku jiray ee xabsiga ku muslimay ee lagu eedeeyay gabadha wariyaha in uu dilay lagu eedeeyay iyadoo qoyskii gabadhu ka soo jeeday ay leeyihiin yaa naloo dilin bal u fiirso iyagoo ay leeyihiin yaa naloo dilin ama xabsigiisa isaga jiro ama faraha laga qaado oo hal iska fasaxa ay leeyihiin qoyskii gabadha dhalay ayuu Mareykanku dilay sunba lagu dilay nafta la dhaafiyay Ilaahay ha u raxmado subhanahu wa ta'ala wuxuu ahaa nin aad iyo aad u qalbi wanaagsan buu ahaa ma sha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala hu naxariisto ninka odaga ah markii la dilay hay'adahan hadda qeylqeeliya ee maaragta dhahaya Iran waxay ku xadgudubtay xuquuqul insaanki ma aanay hadlin may hadlaan marka Gaza marka dadku lagu baabi'inayo bamka aan caadiga ahayn lagu dhufanayo may hadlaan oo dhahan xuquuqul insaan baa halkan ka maqan may dhahan ma dhahayaante ama ogaa ama ha ogaan qofka xuquuqda loo yeelayo inuu xuquuq leeyahay qofka ay aaminsan yihiin waa qofka aan muslimka ahayn inta kale xuquuq way siiyaan laakiin qofku muslim yahay waxay ka aaminsan yihiin wax xuquuq ah inuu sar adduunyadan ba ku lahayn qof xumo ondorasho qashin inuu yahay ay ka aaminsan yihiin marka arintan laftigeeda waxa laga baqayaa inay xasaasiyad kala sii abuurto oo hor leh inay sii abuurto waxyaabaha u sii horseedaya in dagaaladu maaragta ay sii qaraaraadaan oo isfaham la'aantu ay sii badato ayaa looga cabsi qabaa inay ka mid noqoto qodobkan hagaag taa markaan ka imaano xafiiska ra'iisul wasaaraha Netanyahu Israa'iil afar qof oo ka tirsaneed ayaa la xiray maanta oo uu ku jiro fayeenkii xafiiska ra'iisul wasaaraha afar qof uu ku jiro ayaa la xiray afarta qof waxa loo xiray marka sir u qarsooneed xafiiska ra'iisul wasaaraha sir u qarsooneed ayaa lagu tuhmay inay dusiyeen oo ay ururada kale la wadaageen oo ay warbaahintii galiyeen sirtaas oo lagu sheegay inay sir amni oo aad iyo aad muhiim u ahayd waa la soo xiray afartii qofood يعني halka waxaad ka dareemaysaa nimanka la soo xiray ee sirta dusinaya ma ahan dad sirta iska dusin inay iska jecleystay inay sir iska dusiyaan ma ee waxa ay la shaqeynayaan ururada Iran iyo xisbiyadan kale ayay la shaqeynayaan marka aaminaadii ayaaba ka luntay dhexdooda ayaa Ilaahay inta isku jeediyay bay sida midaba mid iska eegaya ayagiya dhexdooda midaba mid iska eegaya waana sababta loo qiyaasayo in nimankan xilligii ay saaxada ka bixi lahaayeen ay soo dhawaatay marka wixii ka soo kordha waa idin la wadaagayaa idan Ilaahay aad bad maasantiin haddaad nagu cusub tahay nagu soo bir raayigaaga ka dhibo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh